waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan dib ugu soo laabto magaalada Garowe muddo dhowr iyo 10 casho waxaan ku maqnaa safar shaqo oo aan ku kala bixiyay magaalada Muqdisho oo aan kaga qayb galay shirkii qorshaha cadaaladda iyo amniga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isugu yimaadeen runtii qorshahaas oo muhiim u ahaa inaan maaragtay 3 sano soo socota aanu geyno qorshihii dowladda Puntland 3 sano ahaa qaybtii cadaaladda aanu geyno iyo inaanu maamulada kaleeto soo bandhigno sida aan qorshaha ku sameynay oo dowladda Puntland ay ku sameysay oo hanaanka uu ku yimi waxaan kaloo runtii aan aad ugu faraxsanahay inaan soo bandhignay barnaamij aan hadda ka hor la sameynay maamul goboleedyada oo ahaa aqoon kororsi oo aan u soo bandhignay iyagana sidii maaragtay aan Puntland ay uga qayb qaadan lahayd dhismaha dowladaha hadda soo federaalka ah hadda maaragtay iyagu soo jaan qaaday marka taasna waxay u tustay dadkii naga qayb galay beesha caalamka iyo in maaragtay horumarkaas laga faa'iideysto kadib waxaan u gudbay magaalada Kampala oo aan ka qayb galay shir iiga soo qabanqaabisay oo laga hadlayo sharciyada waliba gaar ahaan sharciyada badaha waxa isugu yimi sharci yaqaano badan baa isugu yimi oo kala duwan oo meelo badan ka yimi Puntland ma uga qayb galay runtii iyadana waxaan ku guuleysanay in sharciyada gacana laga siiyo gaar ahaan sharciyada badaha iyo maaragtay waxyaabaha Soomaaliya gacanta laga siinayo annaguna aan qayb ka noqono maadaama aanu badda ugu weyn maamulka goboleedka badda ugu weyn leh aan nahay labada badoodna ay maraan kadib waxaan ku soo laabtay magaalada Muqdisho oo aan hay'adda UNDP anaga iyo dowladda wasaaradda federaalka aan ka wada shaqeynaynay barnaamij scholarship ah oo loogu talagalay in wax lagu baro maamul goboleedyada garsoorayaashooda iyo xirgaalintooda iyo asluubtooda iyo maaragtay sharciyada lagu baro kaasoo laga dhigay hab jaamacadeed oo ay jaamacadda BSU ku guuleysatay qaybtiisa iyo jaamacadda Muqdisho waxa mar ku taala 15 arday way hadda 13 arday ay la socotay Muqdisho ka soo kaxeeyay 12 arday sabti imaanayeen 15 arday waxay bilaabayaan kulliyadda sharciga waxaan kaloo rabnaa inaanu xarumaha cadaaladda aanu geyno oo ay gelin ka shaqeeyaan si markaas aqoontii iyo waayo aragnimadii labadaba ay u helaan taasna waxaan rabnaa inay maaragtay sida u dhaqsiyaan badan markay jaamacaddooda dhamaystaan muddada 4 sano ah inay ka howlgalaan laamihii cadaaladda iyo sida lagu horumarin lahaa cadaaladda Jubbaland haddii la hayno taasna waxay la tahay waxa weeye waa wax annaga nolol ka fadhiyay inaanu maamulada gacan siino oo aan gacanta soo qabanno inta ka soo gaaraya meesha rabaan waa ku faraxsanahay jaamacadda BSU waa naga hortimi oo runtii iyaguna kaalin weyn ka qaadanayay maaragtay ardadeedii iyo madaxdeedii waa ku faraxsanahay inay ardaydaas ila soo dhaweeyaan yaana maxaa yeelay barnaamijkaas muddo dheer baan u galay muddo sanad ah ayaan ku daba jiray in barnaamijkaas mar uu hirgalo mar uu Puntland ay hooyadeedii ay rumuudo ahayd inay maamulada gacanta qabato insha Allah waxaan rajeynayaa maamulada kale tan inaan keeni doono sanadahan soo socda ee bilaha soo socda iyagana waan rajeynayaa insha Allah waa ka shaqeynaa shaqada gacanta ku hayna wafdi badan baa ila socday oo marka horena aan soo raacno maxkamadaha iyo xirgaalinta iyo asluubta isugu jiray iyo sharci yaqaano wasaaradda ka socday runtiina waxaan rajeynayaa insha Allah arrintaas inay mid dhali doonto sharciyadaas iyo barnaamijyada iyo qorshahaas qorshahan lafti koowaad baa la sameeyay waa sii wadayna haddii la hayno waxaan rajeynayaa insha Allah inuu noqdo qorsho Soomaaliya oo dhan ay ku wada qanacsan tahay sida cadaaladda oo Soomaaliya wax looga qaban lahaa lisana fahmo haddii la hayno Puntland ay u noqoto best practice ay u noqoto ama wax lagu daydo ay u noqoto si maaragtay qorshaha loo fulinayo marka waxaan rajeynaynaa shaqooyin badan baa noo qabsoomay waxaasna waxaan isleenahay haddaa kala sii dhawaataan wax badan baa idiin qabsoomi kara runtiina waa guulo waaweyn in maanta Puntland ay tahay runtii meesha kaliya Soomaaliya inteeda kaleeto aqoonta iyo waayo aragnimada u haysa wixii ay soo marteen maaragtay la wadaagaysa maamulada kaleeto iyo waxyaabaha ay maaragtay iyada ku soo guuleysatay iyo caqabadihii markaa iyada ka horreeyay waxa weeye Garowe shaqooyinka iyo hawlahayga aan hore u waday waan sii wadaya haddii la hayno qorshaha ugu weyn waxay tahay ardaydaas inaan maaragtay barnaamijkooda aan furo oo jaamacaddii ay ka mid noqdaan deegaamadooda waxooda ay helaan waxaan rajeynayaa insha Allah dhawaan haddii la hayno in maaragtay hawlahaas oo dhan noo dhammaan doonaan waxaan kaloo rabnaa shirarkayga caadiga ah ee aan isku wareysan jirnay inaan qorshaha wixii la soo gaaray draftiga ah shirka cadaaladda bilaha ah inaan soo bandhigno si markaa haddii dadka kaleeto ee badan ee reer Puntland ay ka qayb gala ay maaragtay shirka cadaaladda ay wax ku daraan aan ugu celino dib comments beesha caalamka iyo hay'adaha nagala shaqeynaya dowladda federaalka